wiilkeeni wadna ee Axmed Madow ay dhihi jireen wuxuu taagan yahay aniga Soomaaliya marka horeba gees baan uga taagnaa hadda se waan ka maarmay waan ka go'ay wixii maanta ka dhammaan ma maqli kari wax la leeyahay Jubbaland laan dhan waa inaan dhinac liga dhigaa oo wuxuu leeyahay Jubbaland ma maqli kari aniga hadda waxaan ahay waddan madax bannaan war ina adeero deeqal wax noo garin fustana noo soo rixisa nagada Somaliland oo 30 sano xarbinaysay ayaa taasi guulka gaar weysay waxaasna qof aqal qaba oo dhageysan kara ma ahan kulay ra'yigan adiga ma lihidi waa mid shisheeye kharij ka imaadeen nagada ganacsatada Somaliland hadda maxaa haysta waxay ku xayiran yihiin Imaaraadka iyo Itoobiya dib kalena arrinka uma keenin waa diidanta ay diidan yihiin diidnaanta ay diidan yihiin Soomaaliya Soomaalinimada wax ka weyn ma jirto islaamnimada markii laga soo tago laakiin qofka hadduu marba diinta uu ka tago aqeediisa hadduu ka tago iyo qiimkiisa wax walba ka soo rowdaa macnaha si daanyar inaad u dhaqato waxba kula maaha laakiin diinta way ugu weyneed oo Ilaahay ku doortay haddaba ka tagto dafirto oo aad tiriidaha aniga يعني الدين سما إيه دورنا كان أنا كمان دورنا يا وحلو كسرتوا سومالي مسكدا فوق كذا نكسرتوا